wardegdega golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabo buuq badan ka abuurtay gudaha gobolka Banaadir. golaha wasiirada oo maanta yeeshay kulankoodii khamiislaha ee asbuuc walba hal mar ay isku imaan jireen ayaa lagu ansixiyay habraacyo cusub oo lagu kala aqoonsanayo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir, taasoo degmooyinka loo kala saaray A iyo B. waxaa dhanka kaleeto iyadana meesha laga saaray degmooyin in ka badan 20 sano jiray, kuwaas oo laga dhigay waaxyo ka tirsan degmooyinka kaleeto oo lagu daray degmooyin kale oo degmanimadii ayay golaha wasiiradu kala laabteen. arrintan ayaa buuq badan ka abuurtay gudaha magaalada Muqdisho, waxa ayna dadweynuhu aad isku weydiinayaan tallaabada maanta ay qaadeen golaha wasiirada xilliga ay ku soo aadayso iyo weliba xiisadda cusub ee markaasi golaha wasiiradu ay iyagu albaabada u fureen. waxaa dhanka kaleeto iyadana guux laga dareemayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaba oo la isweydiinaya habraacan waxaa lagu tilmaamay mid uu dabada ka leexayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, taasoo beelo gaara loola dan leeyahay oo la doonayo in lagu burburiyo degmooyinka ay sida gaarka ugu leeyihiin gobolka Banaadir. haddaba tallaabadan ay golaha wasiirada qaadeen xilliga ay ku soo aaday xiisadda ka dhalatay kacdoonka shacab ee la dareemayo iyo sidoo kaleeto degmooyinka magacyadooda qaabka loo qaybiye A iyo B, degmooyinka Eeda iyo kuwa Bida tiradooda iyo weliba kuwa degmanimada lagala laabtay ayaa muuqaalka ku qaadaa dhigi doonaa. hadduu alla idmo soo dhawaada idinkuna muuqaalka like saaro, aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ee khamiislaha ayaa soo saaray habraacyo cusub oo markaasi lagu kala aqoonsanayo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir. 9 degmo ayaa loo aqoonsaday in ay yihiin degmooyinka Eeda, halka 7 kalena loo aqoonsaday in ay yihiin degmooyinka Bida. waxaa dhanka kaleeto meel iyadana meesha laga saaray degmooyin kaleeto oo horay uga tirsanaa gobolka Banaadir in ka badan 20 sanana degmo ahaa. haddaba degmooyinkan Eeda ayaynu ku bilaabaynaa. 1 waa degmada Hodan, 2 waa degmada Yaaqshiid, 3 waa Dayniile, 4 waa Kaaraan, 5 waa Dharkeynley, 6 waa Wadajir, 7 waa Warta Nabadda, 8 waa Heliwaa, 9 waa Howlwadaag. 9kaas degmo waa degmooyinka Eeda. adigu degmada aad ka sii tahay ee aad ka degan tahay iyo farxadaada waa noo farxad haddii aad ku faraxday in degmooyinka Eeda degmadaadu ay ku soo biirto. ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa u farxad, laakiin kuwa walaalada ah ayaa caawa murugo ama maanta murugo ay u soo hoyatay oo aad iyo aad uga murugsan degmanimadii lagala laabtay. qaar degmooyinkoodii ay galeen B oo la yidhi waa iyaga naftirkooda il gaara ayaa lagu eegi doonaa. Bida micnaha waxa weeye degmanimadaadu waa half xoogaa waxa weeye farta kugu godan weeye, farta ayaa kugu godan dhanka populationka, dhanka wax soo saarka, dhanka waxa weeye amniga, dhinac walba sheekhow waa laga qiimeynaya. degmooyinka kaleeto ee markaasi Bida ama darajada Bida waa darajooyin la kala siiyay. horta waxaan A iyo B baa la kala siiyay, marka waa darajooyin. darajada Bida degmooyinka qaatay 1 waa Waaberi, 2 waa Shibis, 3 waa Xamar Jajab, 4 waa Boondheere, 5 waa Xamar Weyne, 6 waa Cabdicasiis, 7 waa Shangaani, degmada Shangaani. 7da degmo waa darajada Bida ayaa qalinka maanta loogu dugay golaha wasiiradu ay ugu dugeen. haddaba arrintan xagee ayay ka soo fushay? maxaa loo sababeeyey? arrintan waxay ka soo fushay guddiga doorashooyinka oo hor keenay habraacyadii hanaankii ay dadku u codeeyeen, tirada codaysay iyo weliba degma ahaanteeda baaxadeeda inta police station ama inta sanduuq ama inta goobood ee laga codeynayay ayay soo qiimeeyeen. dhinacyo badan bay ka soo qiimeeyeen guddiga doorashooyinka, waxayna hor keeneen golaha wasiirada. ugu dambeynna golaha wasiirada ayaa u kala saaray A iyo B, halka degmooyin ay ka mid tahay Kaxda, degmada Kaxda ay ka mid tahay gebi ahaanba lagala laabtay degmanimadoodii oo lagu daray degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. Kaxda hadda waxaa lagu daray Dharkeynley, degmada Dharkeynley wax ka tirsan ayaa laga dhigay, halka waagii hore 20 sano in ka badan bay degmo ahayd. waxaa loo sababeeyey 1 inaysan
dad badani ka codaynin laba inay inqilaab ay sameeyeen xilligii oo doorashooyinka la qabanayay hawlo badan bay guddiga doorashooyinku ay u sababeeyeen intaa waa habraacyada ay guddiga doorashooyinka keeneen iyo habraacyada golaha wasiiradu ay soo saareen ee loogu kala aqoonsaday degmooyinka gobolka banaadir darajooyinka A iyo B haddaba intaa markii laga soo tago oo talaabada ay qaadeen golaha wasiiradu ay qaadeen waxaa soo baxday isla markiiba guux shacab baa kacay magaalada muqdisho wax kale daqiiqadihii la soo dhaafay lagama hadal hayo dalka dibadiisana iyadana sidoo kale fadhi ku diriyadu war waxan waa maxay baa la leeyahay inta badan laba sababood baa loo sababaynayo la leeyahay way ka dambeeyeen qorshe xumadan maanta golaha wasiiradu ay ansixiyeen waa sida ay dadku leeyihiin aniga maaha anigu waxaan u arkaa in haddii degmooyinku aysan u qalmin degmo la isku shaandheeyo aniga ka santaag ahaan wey laakiin waa ra'yi ahaan sida dadka inta badan ay u badan yihiin waa mida waxay leeyihiin guddiga doorashooyinka degmooyinka lacag bay soo siiyeen xilligii doorashada la codka noo badiya lacag bay qaateen oo laalish bay qaateen guddiga doorashooyinka arrinta lagu eedeynaya waa qodobka labaad ee madaxweynaha lagu eedeynayo waxaa la leeyahay degmooyinkan degmanimada laga laabtay la yidhi degmo ma u qalmaan madaxweyne xasan baa dabada ka riixaya oo dad gaaruu ula jeedaa beelo gaaruu u jeedaa annaguu noo jeedaa qoysas iyo jufo hoosuu u jeedaa iyo wax la mida labada arrimood baa lagu dhegan yahay waa madaxweynihii iyo guddigii doorashooyinka labadaas baa dhinacyada lagu dhegan yahay oo laleeyahay waa arrimo siyaasadeed iyo oo waxa weeye weliba qabyaaladaysan iyo arrimo waxaa la leeyahay laaluusho corruptiona ayaa sidan yeeshay baa la leeyahay oo sidan ka dambeysay xataa degmooyinkan A iyo B da naftirkooda is haysta oo waxaa la leeyahay degme hebel A baa la siiyey degme hebel B baa la siiyey degme hebel iyo degme hebel sidee ayay waxa weeye ku dhici kartaa degme hebel baa ka weyn degme hebel baa ka dhaqaala soo saar badan degme hebel baa waxa weeye ka amnisan degme hebel baa ka population badan whatever marka doodo ayaa marka isqabsaday oo saacadii la soo dhaafay ka dhashay talaabadan ay qaadeen golaha wasiirada talaabadan ay qaadeen waa buuq badan waa xasaarado cusub oo golaha wasiiradu iyagu albaabada u fureen dabcan markii la qaaday go'aana la qaadanayo dowladnimo masiiriya la qaadanayo waa muhiim oo iyo waxa weeye waa khasab buuq waa ka dhalanaya qiiq waa kacaya laakiin waxaa la rabaa sidii looga gudbi lahaa iyo weliba xilliga ay ku soo aadayaan baa kala duwan marxaladda maanta dalkeena uu ku jiro mid amni markii laga qiimeeyo mid waxa weeye dhaqaale laga qiimeeyo